ما أنا واحد كستدي ما منكو أدعان واحد كسولو قالها بنا وهو يدي هذا هذه هويدا كل شيء ها maxaa sameeyay dhacdiba marka hooyada waxay ku dhacday xaaskaaga hooyada ma iimaanayso in aan iga fasax qaado maahan ani iga fasax qaad marka hore intaas imaanin ka hor in iga fasax qaada maxaa dhiilay marka tusaale naaga leedahay marka xaaskaaga hadii ku dhiilay tusaale hooyada u baahata guriga inay imaado xaaskaaga hadii ku dhiilay in aan iga fasax qaadid maahan oo aan fasax ma iimaanayso hadii ku dhiilay maxaa sameeyay hooyada markii guriga iimaanayso hadii xaaskaaga ku dhiilay hooyada in guriga imaato ani iga fasax qaado hadii kale ma iimaanayso amal hadii ku dhiilay maxaa sameeyay السلام عليكم أصحابتي سود وهذا halkaan naga daawanaysan waa YouTube ka Cawaala Films waxaan maanta ku suganahay magaalada Cadaado oo aan su'aalo ka weydiin doono barnaamijka ayaamahan bal hadal hayay ee Sodohda ku soo dhaw أصحاب ودوهاي Cawaala Films oo ku dhaw saan waxaan ku weydiinayaa su'aal aan rabaa inaan ku weydiiyo diyaar wata Soomaa waxaan rabaa inaan ku weydiiyo ayaantaanba waxa social media la hadal hayay barnaamijkii Sodohda waa la socotaa maleena marka su'aal lacala hadii gabadha aa qabto oo xaaskaaga ay ku dhiileed hooyada oo adii hooyada ku dhashay waaya ay ku dhiileed gurigeyga markii iimaanayso waa inay iga fasax qaadana ani iga fasax qaadamaan ma iimaanayso amal ay ku dhiileed وهو يدي هذا adii hooyada ku dhashay ها maxaa sameeyay حسنا واحد ندحيال بلا أرك مركز أنا هذا lagu kala baxaa oo sabab sababtoo ah waxa aniga dismardi hooyadiisa u baahneenba ani ma bay baahno wax dhaxyaal birna la iska bax ma sidaas waxaan ku weydiinaa tusaale lacala adiga xaasa qabtaa xaaskaaga marka hadii ay ku tiraado ka waran gaba hooyada oo adiga ku dhashay in gurigeyga imaato waa iga fasax qaade ani iga fasax qaada ma ahan ma iimaanin ma la keenay amal dad ku dhiilaad maxaa sameeyay ma la keenay wax ka soo dhaco lagu qaadaraha maana waana keeni lahaa oo ayada waxa ku qaadan lahayd macnaha in uga fasax qaado waayo xaaskaaga uga fasax qaadi lahayd hooyada ay ma haydo ما أنا واحد كستدي ما منكو أدعان واحد كسولو قالها بنا ku soo dhaw saaxiib YouTube ka Cawaala Films waa ku dhaw aad iyo aad saaxiib waa dhaw su'aalku in diyaar wata maano aad iyo aad saaxiib su'aalan ku weydiinaa waxay tahay tusaale adiga xaasa qabtaa naaga leedahay marka xaaskaaga hadii ku dhiilay tusaale hooyada u baahata guriga inay imaado xaaskaaga hadii ku dhiilay in aan iga fasax qaadid maahan oo aan fasax ma iimaanayso hadii ku dhiilay maxaa sameeyay waxaan sameyn lahaa horta tusaale ahaan kulli ra'yigeeda hadduu noqdo taas u jeedaa ilama ahaateenba ayada waxa mudanba marka horeba fasax hooyaba iska laba ayada marka hore la keenayaba hooyo looga fasaxaa hooyo marka fasax ogolaat ma aab la keenayaba kulli wax hooyo fasaxid ku yimaadana amarkan lama imaadeen okay marka adiga waa hooyo waa ku qaadan lahayd maya ha hooyo la fasaxid hadii ayada tusaale arrinkaas ka yimaadana aniga may wax nolol iyo barnaamijyaas maya marka tusaale marka hadii markii halka amarayda ay ku dhiilahayd aniga iyo adiga markii hooyo imaato ama hooyada ama aniga macnaha meeshaas waa ku dhiilahayd ka wariga tagaani saddex lagu furaa afan aan ku furan daaqadan ka bixaa rida xataa ma ogolaadeen walaal ku soo dhaw YouTube ka Cawaala Films adiga magacaaga ku bilaabaya ku dhawahay magacayga waa Shaayib Taliin Maxamed Shaayib su'aal aan rabnaa inaan ku weydiino diyaar oo taamaano aad iyo aad marka su'aasha ku weydiinaa waxay tahay tusaale adiga xaas baa qabtaa xaaskaaga marka hooyadaada adiga ku dhashay intaas dhan la soo kartay la soo barbaartay hadii ku dhahdo hooyada markii guriga iimaanayso waa aniga iga fasax qaado inaan iga fasax qaado maan hooyo ma iimaanayso hadii ku dhahdo maxaa sameeyay wallahi niyo hooyooyinka ayaga guriga dhistay ayagana iska leh mana ahan in qolo loo fasax qaado labada dhinacba mid kamida marka aan wax dhihi lahaa waa labada waa isla mid gabadha hooyadeedna madaxii saaran tahay hooyadeena madaxeeda u saaran tahay waa isla mid way ku waa sax way ku saaran madaxay ku saaran tahay laakiin su'aasha ku weydiiyay waxay ahayd haday lacala imaato hooyo markii guriga imaaydo in aniga iga fasax qaada maxaa ku jawaabi leed wallahi niyo ma taas waa qaldanta arrinkaas labada hooyo ee guriga iska leh ama santa brother ku soo dhaw horta YouTube ka Cawaala Films ku dhawaha su'aal aan rabnaa inaan ku weydiino diyaar oo taamaano aad iyo aad u dhaw okay marka su'aasha ku weydiinaa waxay tahay tusaale adiga xaas baad qabtaa Soomaha xaaska qabtid marka hooyada adiga ku dhashay u baahatay inay guriga imaato ama xaafadda ay ku noolaato marka hadii ay ku dhahdo ka waran xaaskaaga hooyada in aniga iga fasax qaado aniga iga fasax qaato u fasax maan ma ku noolaanayso gurigan hooyada hadii ku dhiileed ka war maxaa sameeyay midaas mid guriga ila joogi lahayd ma ahan daqiiqado koobanna ma wada joogneen ka bacdiyad sax isla markii hore hooyada dhashay aniga waxaan dhaafsanahay ma jiraan waa sax ma santa brother horantii ku soo dhaw YouTube ka Cawaala Films adiga magacaaga ku bilaabaya waa dhaw walaal magacaygu waa Amir Arka Amir Arka saaxiib marka su'aal inaan ku weydiinaa diyaar oo taamaano
okay diyaar ah su-aasha ku weydiinaya marka waxay tahay tusaale adiga xaas baad qabtaa xaaskaaga haddii ay ku tiraahdo ka waran hooyada u baahatay guriga inay ku noolaato tusaale adduunkaan moogtahay waxyaabo badan isku tiri kareen hooyada adiga ku dhashaa u baahatay gurigaaga inay imaato haddii ku dhihi lahayd xaaskaaga ka waran hooyada inaani iga fasax qaada maahan guriga ma imaanayso oo aniga u fasaxo maxaa samayn lahayd de waa qalad ba taas de guriga hooyaa iska leh hooyada guriga iska leh guriga dhanba hooyaa iska leh guriga hooyaa iska leh okay marka haddii imaato okay marka guriga hooyo imaato haddii imaato marka guriga ama aniga ama hooyo maxaa samayn lahayd de hooyo joogaysa guriga iyadoo bixi kartaa aad ma sida brother waxaan la joogaa nin ganacsada oo magaalada caanka ah Cabdisalaan marka ku soo dhawaad Cabdisalaan waan ku dhawahay barnaamijkan waan soo dhaweynayaa okay marka su'aal baan ku weydiinaa su'aasha diyaar u taamaano aad iyo aad diyaar baan ah okay su'aasha ku weydiinaa waxa waaye adiga lacala xaas baad qabtaa xaas aad leedahay guri ku degan marka hooyadaada waxay u baahatay inay guriga imaato صح hooyada adiga ku dhashay inay guriga imaatay oo baad marka hadii ku noolaato hadii marka xaaskaaga mooga hadii ku dhacdo iga fasax qaado hooyada inay guriga imaato anina iga fasax qaadid ma imaanayso ku dhiilaad waxa sameeyay mooga fasax qaadaleed bayna allah warni horta marka koobaad islaanta waxaan kala balami lahaa hooyada soo saxatay waxaan cuno ayna ugu talagelinaa dhihi lahaa ma fahanti amar qaadasho kale ma jirto runta la rabaa waa kala tashi saas waaye marka waxaan leeyahay hooyada soo socotay waxaas ma dhahay aniga cunno fresh sameeyay aniga ma fahanti markii imaatana waa tusan hooyada imaataan leeyahay bila tawfiiq saas way hawsh si ayadoona ogeyn amal ayadoo ogeyn aan keen la hooyada waa aniga si ay ugu farxad inay ku farxadaan dareensana markaas naag aniga haysataa macna ma santa brother walaal ku soo dhaw YouTube Cabdi Films oo magacaaga ku bilaabaya waan dhawahay magacayga waa Cabdishakuur Cabdi Shire ku magac dheer Choqleer Cabdi Shire ma santa marka waxaan rabnaa inaan su'aal ku weydiino diyaar u taamaano صح diyaar oo ahay inay weydiiso su'aal kasta su'aasha ku weydiinaya waxay u dhacaysaa sidaan marka su'aal lacala adiga xaas baa qabtaa xaaskaaga marka hooyada adiga ku dhashay waxay u baahatay inay guriga imaato ama ay ku noolaato dhacdaba marka hooyada waxay ku dhacdaa xaaskaaga hooyada ma imaanayso in ani iga fasax qaada maahan ani iga fasax qaad marka hore intaas imaanin ka hor inaan iga fasax qaada maxaa dhiileen marka tusaale may meesha horta iga fasax qaad ma imaan karto sababtiisu ku imaan karin waxay tahay aniga hooyada waa hooyaday ayadana waa hooyadeed marka aniga haddii aan meesha imaahayo waa in hooyada imaataa oo hooyada waxa looga fasax qaadin marka ayada shalay soo guursanay waxaan iri hooy gabartaasaan guursanaa say tahay gabadhaas ii doon markaan ii doontay iyadii oo guriga ay soo dhistay haddii aan iraado iyadii guri dhistaan ka fasax qaada waxa soconayna macquul hayn waxaan soconayna marka lacala markii hooyo imaatay marka hadii markaas haddana ay imaato ka waran hooyo ama hooyo la soo moogto isku diideen ama hooyo ama aniga ma hooyo wax la simi karaa jirin ayada bixay markaas laasim waa ma santa brother waa tahay wali waxaan sii wadanaa barnaamijkeennii haddana waxa ila jooga walaal ku soo dhaw YouTube Cabdi Films oo magacaaga ku bilaabaya walaal waa ku dhawaad Tahliil Nuur baa la yiraa waa ma santahay su'aal inaan ku weydiina arabna diyaar u tahay Soomaa walaal okay su'aashan ku weydiina waxay tahay marka adiga lacala xaas baad leedahay xaaskaaga guriga ku joogtaa marka hooyadaada adiga ku dhashay xaafadda inay ku noolaato u baahato ama imaato way adduunka moogta waxba iska imaanayeen marka hadii ku tiraahdo ka waran xaaskaaga in aniga iiga fasax qaado ma ahan hooyada ma imaanayso guriga oo aniga iiga fasax qaado ma ahan ma ku noolaanayso ama ma imaanayso aniga iiga fasax qaad marka hore maxaa sameeyay aniga walaal wax qof aan ku kalsoonayn xaafadiis hooyada ma keensadaan Soomahanba keenida marka hore intaada keeninba ka hor lagu dhiilaa intaada aniga keento iiga fasax qaad ina keento iiga fasax qaada ma ka yeelan kalsooni ilaa ano haysta inaan keensado ma ahane asaga amarkiisa ma ku shaqeyn mana ku raacin macna okay ama santa walaal ku soo dhawow YouTube Cabdi Films adiga magacaaga ku bilaabaya waa dhawahay waa Deeq Cabdi Faarax Cabdi deeq su'aal aan rabaa inaan ku weydiino su'aashaas diyaar u tahay filaa si fiican aad iyo aad su'aasha ku weydiinaya marka waxay tahay adiga xaas baad qabtaa oo guri ku joogta hooyana way ku dhashay sax marka tusaale hooyada markii guriga imaanayso de xaaskaaga ku dhiileed hooyada inay guriga imaato ani iga fasax qaad adii kale ma imaanayso amal tii ku dhiileed maxaa sameeyay wax dhici kara ma habo tusaale wayba imaataba yani moogtahay warka way imaan karaa waa imaat haddii imaato waa wax maartan waa la qaldan yahay aragaas laakiin hooyo waana dhashay ayadana waa dhashay anigu hooyada iraahdo guriga imaan wax qalad iyo dhibaato imaanaya anu waxaan leeyahay hooyo
waa hooyo ayada guriga noo dhistay ayada baalkii na dhashay waa inaan maaragtay xal ma dhacayso wax dhici kara ma aha wax aqli geli kara laakiin haday dhacdo waxa waaye waa qalad weyn aas leeyahay hooyo waa hooyo laguma kaftamo waa qof waalida lama dhihi karaba qofkaasna maartay waa qof aan weji ka lahayn oo aan dan ka lahayn ku yiri hooyada guriga ma iman karto sababtoo aan ma dhihi karo sadooday guriga ma iman karto ma dhihi karo gabadhuna waa anoo kale marka waxaa la rabaa in ay gabadhu ay waxaas hadeertada maskaxda dad ay ugu jirto inay wax iska laabtaan wax dhici kara maana waana qalad waana hooyo qof waalida weeye macal aabaha la mid maahan xaq badan ay nagu leedahay anu waxaan dhihi lahaa hadiiba gabadhu ay taas maskaxda soo geliso qof dhaqan rabtana maahan qof weji rabtana maahan waa inuu meesha kala booda ka rabtaa ama santa brother ku soo dhaw youtube Cawaale Films adoo magacaaga ku bilaabaya magacaygu waa Bishaar Mukhtaar Afshir aad aan u dhawaay ka tahay Bishaar waxaan rabnaa galabta inaan su'aal ku weydiino su'aashaas diyaar u tahay filaa yes okay su'aashu waxay u dhacaysaa sida tan su'aal adiga xaas baa qabtaa oo guriga ku joogta hooyan way ku dhashay sax hooyadaada marka waxay baatay inay guriga imaato ama yacni way dhacaysaaba marka adiga hadii ku dhahdo xaaskaaga ka waran hooyada inay guriga imaato aniga inay iga fasax qaado waaye su'aal fasaxiga la'aantiis ma imaanayso inta ku dhahdo maxaa sameeyay horta guriga yaa yimid guriga hadii waxay timid gabadha timid marka koowaad hooyada anay dhash taas macquul maaha inaan xaaskayga aan ku iraahdo hooyada imaanay guriga ma imaan kartaa laakiin hooyo imaanay waa macquul waayo sababtoo ah hooyo waxa loo baahan yahay in ogeysiis soo sameeyo yani loo sii habeeyo meeshii ay joogi lahayd gurigii wixii loo sameeyo laakiin martaba waxa suurtagal ahayn hooyo ma imaan kartaa taas waa waxaan arkaa yani waxaan aqliga gali karin su'aal waxaan aqliga gali karin way imaatay way dhacday marka adiga markaas jawaabtu kula habboona bixilada ama ficil kula habboon sameeyay maxaa sidee su'aal way imaataba in saas lagu dhaho way ku dhahdo hooyo way in aan iga fasax qaada way dhacdo maya ayada baxayda saxaabta soo dhawaada markale waxaan marnaa guntii iyo gabagabadii barnaamijkeena ku saabsanaa sadohda ee su'aalahan ka weydiinay magaalada dhexdeeda halkaas ku soo gabagabeeynaa kulantan baa xiiso leh